wakiilka wadamada isu tagay Imaaraadka Carabta u fadhiya Khaatumo Rashid Diriye Farax ayaa maanta ka soo degay gegada diyaarado ay ka hadaan ee Cigal International Airport ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxa uu ku sababeeyay socodkiisani oo muddo 30 sano ku dhawaada uu ka maqnaa magaalada Hargeysa in uu u kurgalayo wada hadalladii Khaatumo iyo Soomaaliland ee ka qabsoo magaalada Hargeysa sidoo kalena loo ballamay waqti kale hadaba markii uu ka soo degay gegada diyaarado ay ka hadaan ee Cigal International Airport ayaa waxa uu la hadlay telefishinka caalamiga Somali News waxaanu ka warbixiyay safarkiisani ku yimiday magaalada Hargeysa aadilaya waa ku faraxsanahay waraysigaad galab maanta la yeelateen anigoo Rashid Diriye Farax waxaan umada Khaatumo iyo umada Soomaaliland baan u sheegayaa inaan ku suganahay magaalada Hargeysa halkaasna socdaalkaygaasi uu ku saabsan yahay inaan kamera dhaliyo ama aan la socdo anoo halkan aan magaalada Hargeysa aan marti ku ahayn oo ahay magaalo aan muddo badan aan mooga maanta aan imid waxaan umada Khaatumo u sheegayaa haysdeena qofkii Hargeysa tagaba waa isdiibay anagu ismaanu dhiibeen waxaan se taageersanahay wada hadallada muddada sanadka u socday maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo waxaan rajaynayaa wada hadalladaas anagu sida runta haddaan idin la kaftamo qoladii warbaahinta markaan Hargeysa iyo soo eegay magaalada Muqdisho waxay dhawaatay magaalada Hargeysa way magaalada Hargeysa waa dadkayga baa degan ehelkayga baa degan walaalahay baa degan abtiyaashay baa degan isla markaana waxa ila aan ka maarmi waayay iyadoo wada hadallada aan ka faa'iideysanayo inaan u kurgalo xaaladii maadaama magaalada ay ugu dambeysay muddo 30 sano ah isbedel weyn oo ka muuqday waqti aad ay u wanaagsanna ay soo martay maantana aan ku arkay magaaladii oo isbedeshay oo nabadgelyadeeda la tartamaysa magaalooyinka adduunka waxaan umada Khaatumo aan u sheegayaa hotel Mansour baan joogaa caawa dhaqaalahayga ana la baxay tiirkayna la baxay haysdeena maanta Rashid Diriye ma Hargeysa geeyay Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Geeska Afrika maanta arintan halkan midna waxay tahay bal inaan la qaybsado wada hadalladii u socday maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo oo muddo sanad ah ka dhacay magaalooyinka Djibouti iyo Arsaba kulankii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan rajaynayaa aan umada Khaatumo u sheegayaa in wada hadalladaasi la qaato waayo markii ay niman ismaa oo kamid ah maamulka Khaatumo ama gobolada ACC ay tageen magaalada Muqdisho yaana waxaan Muqdisho Hargeysa markay ku tahay maanta Hargeysa ku dhow saasaan u imi ana uga sii gudbi doona safar aan ku baxayo gobolada Mareykanka meel ka mid ah waxaan doonayaa inaan kamera dhaliyo ama aan ogaado wada hadalkii u socday Soomaaliland iyo Khaatumo meeshuu ku dambeeyay Rashid Diriye Farax wakiilka wadamada isu tagay Imaaraadka Carabta u fadhiya Khaatumo ayaa waxa uu baaq u diray injineer Faysal Ali Waraabe oo soo jeediyay inuu hadalka ka daayo wada hadallada Khaatumo iyo Soomaaliland waxaan halkan warbaahinta aan maanta halkan aan u marinayaa ninka la yiraahdo Faysal Ali Waraabe waayo madaxweyne ku-xigeenka Khaatumo oo Cabdullaahi Cagal wuxuu xamar ka sheegay ninkaas la kulmay Faysal Ali Waraabe Faysal Ali Waraabe waa la kulmi karaa waa la hadli karaa wixii ka dhaxeeya waa laga hadli karaa umada Khaatumo iyo umada ka soo jeedo waa laga hadli karaa waxaan leeyahay hadii aan la wada hadlin Faysal Ali Waraabe waxaan ka codsanayaa warbarinta wada hadallada ay socdaan inuu joojiyo arrimaha Khaatumo inuu ka hadlo taas ayaan warbaahinta u soo marnay waayo maalin kasta oo aan dadka ku soo dhaweeyno warbaahinta wada hadalka Khaatumo in la taageero mar Allah markuu Faysal Ali Waraabe hadla dadkii dib nooga gurnayaan waxaan ka codsanayaa inuu mudane Faysal Ali Waraabe uu joojiyo arrimaha Khaatumo oo sida guracaan u dhigayo waayo wuxuu ka dhigay dadkii wada hadalka Khaatumo inay Khaatumo soo wada gashay oo ku soo biirtay xayndaabka Soomaaliland annagu waxaan daba taaganahay oo aan cadeynayna wixii wanaag ku jiro ee umadaasi ay ku wada hadlayaan maamul ahaan shakhsiyan ahaan deegaan ahaan in si nabadgelyo lagu dhameeyo wada hadalku ay sii socdaan waxaan rajaynayaa wada hadalkaas muddada yar aan joogo inaan ka geysan doono is-afgarad kale waxaana arrimaha maanta halkan ay keenay waxa kamid ah aan maanta Hargeysa u soo aaday waxa kamid ah iyadoo maalin afraad magaalada Garowe gaalkacyo ka dhacday iyadoo ay maamulkii Galmudug iyo maamulkii Puntland
ay ka dhacday wada shaqayn ay ciidamada isku darsadeen ay dadka isdhex galeen sidaa daraadeed madaxdii halkaa ka qayb gashay ee madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Puntland iyo madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Galmudug ay dadkii halkaa u sheegeen in dadkaasi dad wada dhashay ay yihiin marka maxaa diidaya iyadoo oo aan uga dambeynayno maamulka iyaga Khaatumo wada hadalka inay ka mara dhaliyaan maxaa diidaya in horta wada hadalka waxaan ku bogaadinayaa maadaama maamulkii Somaliland ee muddada 26 sano dawladda ahaa uu maanta taageeray wada hadalka Khaatumo oo si toos u taageeray taas waan u maleeyahay inaan laga helay baarlamaanka Puntland aan laga helin kalsoonida inta la eegin baarlamaanka Puntland uu yiraahdo waxaan taageersanahay wada hadalka Khaatumo iyo Puntland haddii ay maanta Somaliland ku dhiibtay inay maamulka Khaatumo la hadasho oo ay wada hadlaan oo ay xisaabtamaan oo si dhab ah u xisaabtamaan waana soo dhaweynaa qurbijoogtuna waa soo dhaweynayna inay halka ka sii wadaan waxaan kaloo idin maanta halkan aan baaq salaan aan ugu dirayaa wasiirka madaxtooyada ee Somaliland mudan Maxamed Xaashi Cabdi oo aftigay maanta aan ku suganahay magaalada Hargeysa aad iyo aad baan idin salaamay warbaahinta Malus TV Hargeysa.